Wabarakatuh. Aad baan kuu salaamayaa and welcome to Language and Computer College Hargeysa. Halkan maanta waxaan ku hadlayaa Macallin Mahdi. Insha Allah kusoo dhawow casharkeeni live-ka aan maanta isla qaadan doono. Waxaanu ka wada hadli doonaa qaabka loo barto luqad cusub. Arday badan baa inta badan nala soo xiriirta kuwa dhigta iyo kuwa aan dhiganba oo si toos ah ay soo weydiiyaan message-ka Facebook nagu reeba. Macallin luqadan doonay inaan barto ama caqabad bay ka hortaagan ama sidee ugu fudud aan luqadda u baran karaa su'aalo ugu badan ay soo noqdaba kuwa marka taasaan maanta doonaya inaan idiga jawaabo insha Allah haddaba waxaan doonayaa marka hore wixii caqabad ay ka hortaagan luqadda dhinaca luqadda inaad comment ku soo qorto waxa kugu adag hadalka waxa kugu adag akhriska waxa kugu adag pronunciation-ka ku dhawaaqa waxa kugu adag dhageysiga dadka kale hadalkooda ma fahantid ama hadalka boobsiiska uu ku dhaafaya marka wixii kugu adagba soo qorsho ama writing-ka kugu adag comments nagu soo qorsho marka caqabad kastaba ee ku haysata nagu soo qor comments-ka anagana say noo siiso warbixin idigana insha Allah wixii aan idiga caawin karno mustaqbalka aan u soo talagalno haddaba sidoo kale wixii su'aal aad qabto comments nagu soo qor teamkeega inaka media dinaasir bayno jooga comments-ka akhri doono insha Allah wixii su'aal ka soo baxda wisoo sheegi casharkan dhex geli doono insha Allah haddaba maanta waxaan isla qaadan doonaa qodobka ama mawduucayna how to learn a new language title waa soo gaabiyey laakiin waxa weeyaan how to learn a new language qaabka loo barto luqad cusub haddaba luqadda barashadeeda ma faa'iidadeed leedahay ka wada hadli mayno taa wada garanaysa keliyaad waxaad ogaataan luqaddu waa xirfad waa skillna ma lagu barto theory ahaan theory-ga maaha waxa weeyaan waa sida baabuurka la kaxeynayo kale ma gaariga kaxeyntiisa oo kale waa xirfad lagu barto practice waa inaad ficilkii la timaadaa adigu aad ku dhaqaaqdaa aad ku hadashaa marka taas waa marka hore ogaataa luqaddu waa xirfad adiga kaa doonaysa inaad waqti geliso haddaba marka ugu horeysa intaanaba la gelinba halka qeybka waayo waxaan doonaya in yara kala saaro how to do listening sida loo sameeyaa speaking-ka reading-ka writing-ka si ay kala horeeyaan mid walba maxaad xooga saari kartaa wadada ugu wanaagsan ee ugu fudud ayaan doonaya in la taliyo insha Allah laakiin waxa ka horeeya intaanad luqadda baran waa inaad marka hore 5 shuruudood aad soo buuxisaa number 1 waxa laga doonayaa waa inaad xaqiijisaa what's your goal hadafkaad ka leedahay barashada luqadda waa maxay إن اللغة وين بالارنت لكن إذا ترى هذا اللغة سجود بندوني وضع برتا لما يصير كذا 4 سنة هو قال 4 سنة 6 سنة 5 سنة لكن هذا الدول سو إن اللغة كو هذا شو وأنا دريت كحوج صار المتك كوبت ولا بس هدي لكن زي الشغل كعجب بانتنا مرة بإيميل قرطة أما بروبوزل قرطة وهذا البدن على عجب بهني مركب واحد دول اسمه حوج صار تهريتك marka mar walba markaad goolka sameynayso hadafkaaga ama targetkaaga waa inaad ku qortaa maxay waxa uu noqon doono ama qaybta luqadda xooga saari doonto iyo muddada doonayso inaad ku dhamaysato waqti intee leeg baad siinaysaa yaana ku baraya yaanad la baranaysa intaasoo dhaweynaysa soo hoos gashaa goolka waa inaad xaqiijisaa haddii kale waxaad noqonaysaa qof iska socdo waayo arday badan baan arkay luqadda barashadeeda way xiiseynayaan laakiinse hadafkii uma cadda macnaheedu waxa weeyaan qofkani luqaddani wuxuu ka doonayo ama sababta u baranayo 100% ma hubo iska baranayo sidoo dad luqadda barta ama shaqo ku heshaa ama wax kale kaga faa'iideysta taas way dhici kartaa laakiinse lama hubo laakiinse hadaf sax ah markaad samaysato hadhow markay xaaladda kugu adkaato goolkii baad xasuusin doontaa waxaad samayn doontaa marka dib isku dhiirigelin adiga naftaada dib u dhiirigelinaya wixii baad ku celinaysa marka waxa weeyaan wax walba nolosha aad qabanayso waa inaad hadaf ka yeelato tusaale kale markaad leedahay aakhiro hadafkaaga muxuu noqonayaa jannada lagu waran iska duceyso waxa lagu yidhi jannada firdaws weydiis diinteena waa barsa hadafka markaanu yeelano hadafka ugu wanaagsan ee ugu sareeya inaanu yeelano marka nolosha waa sidaa guurka oo kale ama shaqada ama waxaad qabanaysa sida ugu wanaagsan hadalka ugu wanaagsan ka yeelasha ilaahna ku rumayn doona marka goolka markaad sameynaysid waa inaad cadaysa number 2 waxa laga doonayaa study smart
study smart macnaheedu waxa weeyaan barashada ama waxaanaad dhiganayso ama aad baranayso waxaa laga bartaa intaad u baahan tahay marka hore ka waran imika haddaad tiraahdo luuqada si guud baan u baranayaa 5,000 oo eray baan xifdiyay ama 2,000 oo eray waqti badan bay ku qaadanaysaa marka waxaa lagaa doonayaa to study smart hadafka markaad aad meel dhigato ama aad caddayso aad qorto study smart marka ugu horeysa inta ugu muhiimsan ama intaad leedahay waad u baahan tahay inta horta xooga saar si markiiba aad u hesho natiijo wanaagsan hadhowna ku sii dhiirigelisa inaad luuqadda si kordhisato laakiinse markaaba haddaad dhowr bilood ama 3 bilood ama 6 bilood haddii aad natiijo ka weydo ama kordhis wax kugu soo kordhay haddaad ka weydo way adkaanaysaa inaad niyad ahaan kusii wado marka study smart waxa weeyaan si wanaagsan oo xirfad leh oo aqli leh maalintii waqti yar oo kooban aad siiso inaanad hal mar isku badnin waa dadka jira markii luuqadda soo galaan ama sawiraya barta maalmaha ugu horeysa saacad iyo 2 saacadood buu dul fadhiyaa maalin labaadkana saas oo kale toddobaad markuu wado toddobaadka labaad ama saddexaadka uu ka dhacayo marka maaha macnaheedu inaad xoog badan saarto maaha inaad yar khafiifiso inaad si wanaagsan oo smarta inaad wax u barato okay number 3 waxa weeyaan practice every day practice 30 minutes daily waanaad practice samayso aniga hore kuu sheegay luuqadda barashadeeda waa xirfad maaha theory like economics ama biology ama wax la baran practical baa laga doonaya marka practice-ka markaad samaynayso waanaad ugu yaraan maalintii 30 daqiiqo aad meel u dhigto macnaheedu waxa weeyaan waqti aad luuqaddan ku hadlayso ciday doonta haato ama kulliyadda aad wax ka baranayso ardayda kula jirta fasalka ama dad iskuul kala aaday oo aad ardayda waqti la qaadanayso ama ehel ama qaraabo ku jooga dalkaad leedahay luuqadoodan baranaya haddaad carabiga baranayso ehel qaraabo ama carabta ku jooga oo kale soo raadisa ama asxaab ama qof whatsappka ama facebook aad iska barateen aad leedahay walaal waxaan doonayaa luuqada carabiga inaad barto whatsappkaaga maad ii qori halkaan ka wada sheegsan ama qof maraykanka jooga ama ingiriiska jooga hadduu taa jecesha laakiin si waxaa lagaa doonayaa si aad u hesho practice ugu yaraan 30 daqiiqo maalintii ku hadal haddii aad doonayso luuqadda qoraalkeeda inaad bartona qoraal dad loo soo doonaysa hadalkeeda inaad barto whatsappka inaad cod isku duubduubtaan ama telegramka oo codkaad xoog u saarto xooga saarto marka practice always very important okay practice la'aan ma soconayso ardayda waxaan la yaabaa anigu doonaya inay luuqadda bartaan laakiin practice-kii inaan la imanayn ma soconayso marka waxa weeyaan wax walba markaad samaynayso waa inaad marka ugu horeysa ugu talagashaa hawshii waqtiga kaa geliya aad sii xisaabisa okay that's number 3 number 4 waxa weeyaan test yourself test yourself imtixaan iska qaad bal istijaabi macnaheedu waxa weeyaan isku day inaad qof si toos ama si live aad Skype ugala hadasho ama Zoom oo kale ama qof ajaanib ama shaqada qof kula jooga aad leedahay maanta bal horta practice-kan doonaya kula qaato bal maanta presentation-kayga aan English ku soo jeediyo ama iyadoo kooban luuqadda English-kan kula hadlo marka test yourself waana imtixaanta video aan markii hore fahansanayn ama maanta aad leedahay waad isku day kartaa inaad fahanto kaasoo kala daawan kartaa ama YouTube hadday noqoto inaad dhegeysato dad leedahay listen-kaygan bal eegaya hadalka inaanu ku dhaafin aad 100% la socoto adoona subtitles u baahnayn istijaabi waayo haddaanad istaskarayn inaad waddadii saxsaneed ku socotay in kale maxaad ka ogtay in wax kugu soo kordhayn in kale ma ogaan kartid waad su-aalo kale qofka markuu jiimka galo waa inuu bishii mar ama 2 toddobaadba mar miisaanka u yeelan karaa hadduu muuqayo dhisana waa inuu cabirka ku eegaa inta wax kusoo kordhay qofkaasi markuu intaas sameeyo wuxuu ogyahay ama halkuu u socday in wax kusoo kordhayn in wax ka tegin luuqaddana saas oo kale istijaabi imtixaan mar walba iska qaad saad ula socoto inay wax iska kaa dhimeen iyo inay wax kugu soo kordheen marka taasi waa important number 5 marka qodobka shanaad enjoy it
qodobka marka shanaad ka ugu muhiimsan markaan eegaba waayo waxaan waa inaad xiisaysaa enjoyment ama farxad inaad ku wada si niyad wanaagsan oo qof xiiseynaya haddii aad laakiinse luuqadda barashadeeda ay kugu adkaato ama qaabkaad u baranaysay noqoto qaab aan adiga kugu habbooneyn ama aanad jeclaysan hadhow xaaladeeda aanad fahmayn ama aanad xiiseyneyn maalinta ugu horeysa aad yara xanuunsato ama aad yara daalantahay ama hawl kale kaaga soo baxdo markiiba waxaad oranaysaa luuqadda inaga dah maalinta xiisada waad u jaraysaa maalinta dambe waad u jaraysaa saad kalba jarjarista u bilaabayso baad hadhow arki doontaa adoo wixii oo dhan ba ka haray waayo wixii baanad xiiseynayn you're not enjoying it macalinka kuu dhigayaan enjoy garaynin oo balaaqadiisa ama qaabka wax u dhigay aanad fahmin ama goobtan aad tegayso ardaydii wax kula baranayay ayaanad isku level beedaan hayn marka waxyaalahaas oo kale baa keenaya qofkana waa inuu niyadiisa u niyad wanaag iyo xiiso ardayda inta badan isdiiwaan gelisa xiise kusoo galaan laakiin xiisahaasi haddaanu gool wadan taasina way dhammaanaysa ogow labadaas way isku xiran yihin waayo xiisahaasi waxaa laga yaaba inuu kaa dhammaado haddii aanad hadafkaanad xasuusnayn laakiin imika tusaale o kale hadii lagu dhaho xaggaa ka shaqee oo shaqadu ay shaqo adag tahay laakiin lagugu sheego sanad markay dhammaato lacag intaa leeg baa lagu siinayaa ama dalxiis dalkaas ayaad si free aad ku tegaysa ama maalin walba $50 lagaa gooyo xagbadaad qaadanaysa sanadka markay dhammaado dee $50 ama $100 bil walba iska jaraso waa xanuun ilan kaama go-do hawlo kale ku qabsan layd laakiin waxaad ku xisaabtamaysa waa maxay natiijada kasoo bixi doonta hadhow markay lacagtaada isku ururto ama fasaxaa lagu siin doono intaasaad ku xisaabtamaysa marka xiisaha waxaa kuusii wadaya waxa weya waa goolka okay very important marka waxaan rajeynaya insha allah ardayda intay 5 qodob inay xooga saaraan inta inaad qorateen ardayda life-ka daawanaysa mar walba inta xasuusiya casharada macalinka markaad la qaadanaysaan buug iyo qalin usoo diyaargarooba sabti ilaa iyo arbac maalin kasta waxaa lasoo galaa 5 buura xilliga waqtiga hargeysa marka waqtiga oradi haddaad u tala gashay qalin iyo buug soo qaado la jaan qaad insha allah marka 5 qodob waxaan rajeynaya inaad qorateen waad si fiican u fahanteen ardayda imika xagga dambe nagala soo qayb qaadatay live-ka markuu live-ka dhammaadaad kusoo celin doontaan insha allah haddaba inta waan ka masaxayaa imika waxaan isla eegi doonaa qaababka 4 qaybood ee luuqadda keebaa la horeysiinaya sababta loo horeysiinayo iyo maxaa laga doonaya inaad qaybta ka barto hadday noqoto listeningka speakingka readingka iyo writingka 4 qaybood baan sharxi doonaa insha allah marka intaan ka masaxayo wixii commentsa su-aala kusoo qora commentska ama haddii aad leedahay caqabada aniga haysata luuqad ahaan waa taa iyo taa iyo taa intaana commentska noogu soo qor insha allah okay Nasir, any questions? Okay, good. So then we'll just continue. If any questions come up, let me know, Sean. Yeah, hey. haddaba luuqadda si aad ula socotaan 4 qaybood bay ka koobantahay soo ma keebaa la horeysiinaya markaad luuqadda cusub baranayso keebaa horeynaya waxaa horeynaya readingka waxaa horeynaya writingka waxaa horeynaya listeningka waxaa horeynaya speakingka luuqadda marka la baranayo waxaa ugu habboon in la horeysiiyo listeningka dhegeysiga okay listeningka ugu wanaagsan marka listeningka marka laga hadlayo listeningkaasi waxaa lagaa doonayaa dhegeysiga markaad la qabsanayso intaanad ereyadaba akrin waayo markaad ereyga akrinayso waxaa laga yaabaa ku dhawaaqdiisa ma ogid macnihiisana ma garanaysid laakiin markaad dhegeysanayso 2 arrimood baa kugu soo kordhaya marka ugu horeysa waxaad la qabsanaysaa maxay sentence marka waxaa la doonayaa listeningka inuu ku baro new vocabulary waa soo gaabay marka new vocabulary baad ka baranaysaa plus sentences kana soo gaabiyo
markaa sentences baa lagu qori karaa sentences iyo phrases inta baad ka baranaysaa listening weliba waxaa ku dheeraada intaasoo dhan qaabka pronunciationkooda marka haddaan idin yara faahfaahiyo okay amigo almaal arkayso okay it's good so put it back so if you look at it vocabulary markaad listening aad sameynayso dhegeysiga waxaa la sameeya tusaale oo kale youtube-ka aad access ku leedahay internetkaaga waxaad daawatay in yaroo warbixin koobana BBC doo kale ama CNN oo kale ayaad in yar ka daawatay waxaa laga yaabaa inay kugu yar adkaato haddaba waxaad daawanaysaa sheekooyinkayna hooseeya haddii like levelkaa taaginta waad la qayb qaadan la jaan qaadi karta haddii kale levelkayna hooseeya sheeka carruureed oo kale markaa children stories ama kid stories baad ku qoraysaa youtube-ka kuwaasaad daawanaysaa fili kartoonka waxyaalaha ugu wanaagsan ee lagu barto okay marka koowaad waxaad samaynaysaa markuu erey kaaga soo horbaxo aanad garanayn waad ila joojinaysaa ereygaa macnihiisa ad raadinaysaa ereygaa macnihiisa ayaad raadinaysaa listeningka new vocabulary ereygaa macnihiisa markaad barato waad qori karta inkastoo writingka xag daba maraya laakiin waxaan kula talin lahaa erey cusub markuu kaa soo horbaxo mar walba isku day inaad qorto ama sentence iyo phrase luqadda ha u baranin erey keliyad waana sentenceka ama wordha ama jumladda inaad si isku xiran aada u barto tusaale oo kale hi how are you intaasi waa hal sentence soo maha marka intaa haddaad barato hadhow isticmaali karta marka intaasoo dhan barashadeeda ku dhegeysigeeda waxaad baranaysaa ereyo cusub jumlado cusub iyo phrase cusub iyadoo waxaad u raacinaysaa weli waxaa kuu dheeraada waxaad baranaysaa sidii loogu dhawaaqi lahaa marka intaan aad adigu hadal waxaa ka horeynaya mar walba inaad horta dhegeysato qaabka hadalka loogu dhawaaqay haddii kale si khaldan baad ugu dhawaaqay waayo imika haddaan buugka soo hordhigo aan ku dhawaataa luuqadda faransiiska ee akhri waxaa laga yaabaa 90% ereyada inaad qalato ku dhawaaqooda waayo xuruufta qaar baa qaabka loo qoray qaabka loo dhawaaqay iskumaba dhawa marka sida carabiga oo kale higaada oo kale qofka haddaan u fahamsanayn waxaa laga yaabaa ereyga inuu si kale u akhriyo marka waxaa la doonayaa pronunciationkooda inaad xooga saarto kadibna phraseska sentence wixii kaa soo baxa pronunciation markaad barato kadib markaa wixii qofkan uu ku hadlayo horta fahm adigoona hadalba soo saari karayn isku day ugu yaraan sheekadan ama waxaanaad dhegaysanayso inaad inteeda badan aada fahmi karto halkaa markaad gaarsiiso listenkaaga meel fiican buu istaagin laba doonaya advance level kolba maalin in baa ku koraysa waayo la oran maayo beginner ilaa advance listening kaleeta xooga saar maya adoo beginner ah listening-kan in yar baad ka qaadanaysaa speaking-kan in yar reading-kan in yar writing-kan in yar haddana hadhow markaad level 2 u gurubtid haddana mid walba in yar baad kusoo korinaysa saasaad kaabada ama jaranjarada u koraysaa insha allah marka listening-ka marka laga hadlayo waa inta xoog waxaad saaraysaa ku dhawaaqa iyo barashada ereyada cusub iyo weerarka cusub aad fahantay sooma haddaba aanu gudubna qaybta ku xigta listening-ka marka la barto ardayda qaar baa qoraysa wax ku xiga macalin waa reading-ka ama writing ma waxaa ka horeeya speaking marka speaking baa nagu horeynaya insha allah speaking-ka marka waxa weeyaan isagana waa ku hadalka waxaa loo jeedaa markaa ku hadalkiisa waxaa la doonayaa qofka markuu fahmo listening ama weerarkan iyo sentenceyadan iyo ereyadan cusub iyo ku dhawaaqooda isagana inuu practice gareeyo inta waayo inta badan haddaad maalin walba dhegaysato adiguna afkaaga aanad carabkaaga aanad dhaqaajin dee waxba kuguma soo kordhaya inta kugu soo kordhayso yarta marka intaad barato waa inaad markiiba maxay aada practice ku samaysa waa inta imika adigoo dhaho macalinka gaarigii baraya ayaa maanta o dhan dhegaysanaya 20 cashar baa lagu qabtay 20 cashar waxaad leedahay macna aduu gaariga inoo sharax 20 kaa waa ku ag fadhiya macna anaa ku dhegaysanaya gaariga si fiican baan hadhow baray bas waa taas inta yaree lagu baraba waa inaad adna markaaba inta yar aad ku dhaqaaqi karta aad samayn karta haddii maanta lagu baro gaariga hore u socdo marka dambana wax lagu barayaa maalinta ku xigtana wax lagu barayaa gaariga reverskiisa soo maha
maalinta ku xigtana waxaa lagu barayaa qaybaha ka duwan ama leexidda ama goolada oo kale ama saxmadda oo kale dalcadda oo kale maalinba yar baa lagu baraya laakiin marka hore waa lagu sharxayaa intaa yar kooban baa lagu sharxayaa kadibna waxaa lagu leeyahay intaa imika lagu sharxay ku dhawaaq buug oo dhan ama casharada oo dhan hal mar laguma wada sharxaya markaa kulaguma oranayo ku dhawaaq iscostaas marka luuqadna saas oo kale kolba bite size waxaa la dhaha in yar intaa yar aad u baahantahay ayaad baranaysaa intaa yar markaad barato aadna kadib ficil geli practice geli okay marka speakingka marka ugu horeysa waxaa lagaa doonayaa give information inaad bixin karto info to give info marka waa information baa laga soo gaabiyey inaad info bixin karto qoraalku sii qolac sameynaysa waxaan rajaya inaad fahmi kartaa speakingka waxaa lagaa doonaya inaad macluumaad aad qofkan siin karto macluumaadka maxaa laga jeeda marka macluumaad aad nafsiga kugu saabsan hadaad beginner tahay ugu yaraan inaad adigu magacaaga da-daada iyo bartaad ku dhalatay inaad sheegi karto iyo qoyskaaga inaad wax ka sheegi karto ay bugaagta manhajkan dhino xaggaasoo kale ardayga looga soo bilaabo sooma marka waxaa la doonayaa macluumaadka inaad qofka siin karto inaad adigu u noqon karto qof intaa uu soo bartay macluumaad qofkan uu la hadlaya siin kara marka familiga oo kale sheeka caruureedka oo kale qoyska ka hadlaya ama basic oo kale markaad soo barato wax badan baa kugu kordhaya ta labaad waxaa lagaa doonaya speakingka inaad samayn karto question and answers inaad su-aalo iyo jawaab bixin kar samayn karto qofkan inaad su-aal weydiin karto jawaab bixin aad siin karto marka waxaad ka baranaysa waa maxay listening sentenceadii listening aad ka baratay hey how are you waa su-aasha I'm fine thanks how are you waa jawaabta intaa markaad dhegeystaad fahanto adna sidaas oo kale ku dhaata ardayda markay weydiisay macalin seen u hadli karaa very simple mobilkaaga gacanta soo ma haysatid waxaa ku jira application voice recorder codka lagu duubo kaad codka ku duubayso adigaa macalin isku noqon kara macnaha waxa weyaan codkaaga markaad duubto speakingkii practiceka aad youtube-ka ka daawatay ama conversationka waxaad ku qoraysaa youtube English family ama English talking about family ama English talking about weather cimilada haddaad doonaysa ka sheegayso ama environmentka ama dadka ama qoyska waxaad doonaysaa inaad ka hadasho waad u sheegi kartaa qofka ama youtube-ka ku qori karta kadib markuu ku soo baxo mobilkaaga gacanta maad codka ku duubaysaa intii aad dhegeystay aad xifdisay codka markaad duubto dib u dhegeyso adigu marka hadday kula saxsan tahay very good oo codkan aad dhegeystin hadduu ku dhow yahay waa okay haddii laakiinse wax ka maqan yihiin ku celi ilaa intaad la keenaysa insha allah okay marka intaasina waa speakingka listening iyo speaking aad unta soo how much time do you have 5 more minutes soo ma waxaan malay waqtiga ma sii wadnaa ardayda way ku jiraan soo ma so okay everything any questions inaan waxaan waxaan wadaawaa lifeada life on daawada laakiin xiisada free miya mise waa lacag oo maalin walba waa leeri karaa life isagoo de maalin walba facebook la soo galaa isagoo wax weeyaan waa free waxaan intaa ugu tabarucaad ugu sameynaa dadka baraha bulshada inoogu jira sidoo kale dhinaca kalena inagana waxay noo noqonaysaa inaanu macluumaad ardayda ku siino qaabkan wax u dhigano laakiin fasalada ama koorsooyinka caadiga loo dhigto macalinka ku joogo macalin ku shaqeynaya anana casharada kuu soo diyaarinayo kuwaas waa free waa $10 bishi marka intaa $10 bishi ardayga laga qaadayo waxaa loo shaqeynayaa maalin walba ardayda qaar baa 2-3 saacadood maalintii macalinka la sheegsanaysa marka salaad ugu faa'iidaysatay ku xiranta macalinka 8 subaxnimo ilaa 8 fiidnimo uu kuu fadhiyo okay marka waxa weeye speakingka iyo listeningka labada qaybood baad fahantay baa rajeynaya haddaba waxaan u wareegaynaa reading iyo writingka waqti inuu gaaro soo iska sii wadan doonaa kolley laba qaybood ka dhigi mayno maantaan wada dhamaystir insha allah marka intaa inaad fahantay baan rajeynayaa labada qaybood haddii aad u baahataan live-ka markuu dhammaado waad kusoo celin kartaan waad wada qoran kartaan insha allah طب إذا كان سؤال ممكن توديني أنت أنا الصبورة بقرين listening كوا كهوريسيني speaking كوا كهوريسيني زمان reading يا writing كيف هوريني ما writing كهوريني زم بس reading كهوريني كم تكسر writing first or reading first كيف هوريني بريشة نركض إن شاء الله
Let's see what they say. Abi Nasir. Okay. Okay. Marka waxaan rajeynaya inaad comments-ka kusoo qorteen. They've got it. Yeah. There's 1 minute behind or 30 seconds behind. Marka they'll write it anyway. Marka ma writing ka horeynaya mise reading ka horeynaya? I want to know. Listening iyo speaking maxaa ku xiga? Su'aalo kale haddaan ku siiyo markaad Soomaaliga baranaysid yaraantaada. Haddaan sheeko yar kasoo qaadno barashada af Soomaaliga markaad yarayd maxaa ugu horreeyay? Dhegeysigaa kugu horreysay ma saan hore ugu sheegay. Adoo sanad jira ama sanad waxba aan ka yarayn baa laga yaabaa ayaad ereyada qaar si fiican u dhegeysanaysay. Waxaa laga yaabaa ficilka marka lagu sheego ama la dhaho fariiso ama joog waad yara fahmaysa. Laakiin hadalkaama soo bixin. Laakiin waxaad baranaysaa dadkan agtaada jooga waalidka, hooyada, aabaha, walaalaha hadalladooda ayaad kolba maalinba qof aad wax ka koranaysa. Ku xiga waxaa ku xiga markaa ku hadalkaaga. Hadalladii aad aabba iyo hooyo iyo walaalo ka maqli jirtay maalin walba aad markii dambena aad ubaad keentay maxay inaad sidoodoo kale uga daba hadasho. Marka copying baad samaynaysaa. Copying barashada luqadda waa nidaam bay leedahay markuu qofku yiri. Kadib markaa maxaa kugu xigay iskuulkii aad gashay soo ma ama waxaa lagu geeyey KG ama malcaamadii aad gashay. Waxaa ku horeynaya qofka ardayga waxa weeyaan waa reading. Akhriskaa ka horeynaya writing. Marka reading ayaa lagu xigaa. Most of them is Most of them is reading. Intooda badan way kartay maasha Allah si fiican buu la socdaa taas. Marka fiidiyoodii hore inta siiyay wax laga yaabaa dhageystaan ama iyagu la haystaan. Waa sax weyn. Marka reading-ka marka laga hadlayo muxuu ku caawinayaa muxuu ku qabanayaa? Reading-ka laba arrimood buu qofku ka baranayaa. Number 1, you learn new vocabulary. Sidii listening oo kale markaad dhegeysato aad ereygaad fahmi weydo aad joojinaysay aad dictionary-ga ama aad thesaurus-ka aad ka baaraysay hore thesaurus-ka waan idin sharxay ardayda fasalada dhigatana intaasoo sheeg baan u sheegay. Markaad thesaurus-ka ama dictionary.com-ka oo kale markaad ka eegto erayo cusub ayaa kugu soo kordhaya. Qofku akhriskiisa uu ka badan yahay ayuu ka vocabulary badan yahay. Waa taas waa xaqiiqo. Qofka akhriskiisa aad u sareeyo ku hadalkiisa ama luqadda intuu ka yaqaano way ka sareysaa dadka bulshada caadiga. Marka qoraalka mar walba ama akhriska u jeeda waa lagu dheereeyaa. Way fiican tahay inay ku anfacaysaa. Waliba af Soomaaliga xoog loo akhriyo. Waa grammar-ka marka Soomaaliga aad baa uga liitaa. Qorista iyo akhriska. Marka new vocabulary kugu soo koro indirect waxaad baranaysaa reading-ka markaad xooga saarto. Indirect grammar. Indirect ayaad ku baranaysaa grammar ahaan. Adoona garanayn rules-ka grammar-ka ama 12 tense aanad korka ka hayn. Haddaad akhriskaaga xoog u badiso waxaad baran doontaa sentence-ka sida saxda loo qoro. Adoona garanayn sababta ereyga loo soo horeysay kana loo dambeysay. Ma fahamtay? Laakiin si ordi dareen baad ku yeelanaysaa. Sida markaa Soomaaliga oo kale imika haddaan af Soomaali word qaldan aan idiin soo qoro xagga ku qoro. Waxaa laga yaabaa 95% inaad soo saari kartaan qaladka. Laakiin haddaan imika idigu weydiiyo qaladka waa soo saartay waad saxsantay. Laakiin naxwo ahaan ama naxwada af Soomaali ahaan ugu fahansiin sababta uu ku qalday. Waxaa laga yaabaa 95% inaad fahansiin karin. Qofkana waxaan ka saxaysa. Bal isku day inaad qof walaalka ama walaasha dibadaha joogto qurbaha joogto inaad af Soomaaliga barto. Waad ogaan doontaa inaad luqadda barashada af Soomaaliga inaanay fududayn. Laakiin waxaad arkaysaa naxwaha barashadiisa iyo barashada luqadda isku xidhna. Naxwaha waa qayb ka mid ah. Grammar-ka waa qayb ka mid ah. Marka reading qofka badiya indirect si direct maaha si indirect ama dhinaca kale ka soo maray indirect ahaan ayuu grammar-kii ku barnayaa. Grammar-kiisa ku qaaday. Waayo wuxuu fahmayaa marka noqoto contractions-ka, punctuation-ka, spelling-ka, sentence structure-ka indirect ayuu ku barnayaa. Waayo akhriskiisa batay. Hadhow markuu qorayana maskaxdaadu waa cajiib.
waxaad akhrinayso maalin walba way store garanaysaa computer iyada ka maskax badan marka boqol wax bay markiiba qabanaysa inta aragtay baad ka baranaysa saan anigu af Soomaaliga ku bartay af Soomaaliga qoraalkayga markaan af Soomaaliga qorayo macallimiin noo joogto af Soomaaliga ku dhalatay ama Hargeysa ku soo barbaartay anaa boqol ka sareeyo sida marka laga hadlo shaqaalaha qaarkood marka waxa weeyaan taas maxaa keenaysaa markaan yaraa aab wuxuu i dhiibi jiray buugaag af Soomaaliya sheekooyin mahmaha marka af Soomaaliga waxba kama noqon waad aragtay madda dadka inta badan qurbaha ka yimaada markay Hargeysa soo gaaraan ama xamar hadday yimaadaan af Soomaaligooda waa iska jajab waa burbur marka waxaa keenaya waxa weeyaan practice la'aanta buugaag af Soomaalina ama wax af Soomaalina ma akhriyaan xilli ma akhrin buugaag af Soomaali baa u yaala marka alxamdulillah aniga aabba macallin ahaan jiray marka ilaa jaamacadda Lof Oole ilaa maxaa la dhahaa iskuulada Hargeysa uu ka dhigi jiray ilaa Burco meel walba marka isaga buugaag af Soomaali intuu soo qaado ayuu oran jiray buugga akhri xagga notebookana ereyadaad fahmido ku soo qor anaa ku sheegay markii dambe wuxuu keenay dictionary English to Somali kiibaan markaan ka faa'iidaystay marka readingka indirect grammar ayaad ka baranaysaa in vocabulary marka ambulance sanayr dhaaftay shaaraan wadi doona waxaan ku xigsiinana qaybta ugu dambaysa writing marka laga hadlayo waxa weeyaan we have improvement ama marka laga hadlayo advanced level basic level kana waa loo baahan yahay maaniga ku sheegay ardayga markuu macallin bilowga yahay casharada markaan u dhigno waxaan mar walba ku dhahaa ereygaan ku baray ama jumlada ama weerkaan ku baray sentencekan ku baray sidiisa uga daba qor sidiisana cod uga soo daba duub maana waxay qofka intuu baranayo spelling kor qaaday marka kan waxaa kor qaadmaya writing-kaaga your spelling iyo grammar-kaaga labada waxay noqonayaan plus corpus kaya marka spelling-ka marka laga hadlayo ardayda waxaa laga yaabaa markay ku hadalka bartaan listening iyo speaking oo kale ardayga haddii xoogan loo saaro waanu aragnay arday badan waxaa ka yara xumaata spelling hadalkii way fahmayaan laakiin marka la dhe qor qaabkay ugu hadlayn bay u qorayaan laakiin spellingkii baa ka xumaanaya waa tusaale oo kale af Soomaaliga inoo kale iminka haddaad baraha bulshada gasho Facebook ama Instagram aad aragto dad af Soomaaliga ku qoraya waa luqadda ugu bahdil waa luqadda af Soomaaliga waa la bahdilay marka dhinaca laga eego waana luqadaha boqolka luqadood adduunka khatarta ku jira inay baabaan qarniga soo socda luqadda af Soomaaliga haddii la hagaajin waayo ama laga shaqayn waayo way baabi waayo iminka waa luqado kale iminka la qabsay marka spelling qofku wuxuu ka baranayaa markuu writing badan sameeyo reading badan sameeyo marka Soomaaliga intaas oo badan marka waxaad arkaysaa dadka inta badan af Soomaaliga wax aan ku qorin markay comments-ka Facebook ku soo qorayaan ama Instagram-ka ama YouTube-ka markay Soomaaliga ku qorayaan nimba erey kaliya waxaad arkaysaa 20 nooc oo kala duwan loo kala qoray 20 nidaam oo kala duwan yaa saxsan yaa khaldan marka waxa keenay waxyaalahaas waxa weeyaan waxa naga maqan barashada af Soomaaliga marka laga hadlayo dugsiga hoose iyo dugsiga sare xoog lama saaro af Soomaaliga sidiisa koorsooyinka ma fasalada kale ay xoog la saaro marka writing-kana wuxuu qofka keenayaa inuu gaarsiinayaa advanced qofka writing-kiisa aad u sareeyo waa qofka advanced level ugu sareeyo gaaray qofka qoraalka xoog waayo markaad advanced writing-ka markaad gaarayso ugu yaraan waa inaad speaking-ka iyo listening-kaaga in advanced tahay haddii kale advanced writing saad u gaadho aadagta marka qofka waxaa lagula xisaabtamaya markuu writing-kiisa meel fiican gaaro darajada luuqadaada kor buu sii soconaysa spelling-kaaga kor buu kacayaa grammar-kaaga kor buu kacayaa advanced level English ayaad noqonaysa waxa ka oo dhan kor buu kacayaa waayo iminka markaad spelling-kaaga iyo grammar-kaaga kor qaado erayo badan oo cusub aad ka barto writing maca laftiisa iyo reading-ka markaad wax qoraysid waanad akhrinaysa labadaas way isla socdaan sida listening iyo speaking isla socdaan reading iyo writing way isla socdaan inta badan kadib qofka markaa muxuu ka faa'iidaysanayaa inuu kor u qaado ereyada ama weerarka iyo jumladu ku hadlayo heer sare u noqdaan marka ereyada basic la isticmaalayo inuu kuwa ka sareeyo oo ka yara adag u isticmaali karo adeegsan karo
qofka native-ka markuu kula hadlayo ama qofka ama shaqada ama meeting-kaad galayso ama presentation-kaad soo jeedinayso qaabkaad ugula hadlayso ayaa ka tayo saraynaysaa qof imika luuqadda bartoo kale su-aalo kale imika anigoo kale af soomaaliga iminkaan ku hadlayo dee imika haddii lasoo istaajiyo macni yaxyi oo kale ama macalin kale oo af soomaaliga igaga dheereeya dee ereyadaan isticmaalayo kuwa ka sareeyo isticmaali karaa soo ma macnida wax weyaan intaasuu igaga dheereeya marka waxaa la doonayaa inaad 4 qaybood baad fahantaan insha allah marka waxaa rajeyn inaad ka faa'idaysteen. Any other questions? maxay grammarka grammarka sidiisa horta 100% xooga lama saaro. Grammarka basic waa la barta oo present past iyo future tense waa inaad kala saari kartaa markaad ardayga bilowga tahayba haddaanad kala saari karin sentence-kan wuxuu yahay ee ku adkaanaysa. laakiin marka laga hadlayo grammar ahaan markaad reading-ka xooga saarto iyo writing-ka xooga saarto indirectly grammarka waad baranaysa. aan waxaan ku oran lahaa kula talin lahaa ruleska grammarka iyaana la isku daalin waayo inta adeegsato yarta anigoo ingiriiska kusoo koray oo 12 sano soo joogay iminka haddii sentenceyo badan lasoo hordhiga dadka 12 tense u kala saarsaa qaar baana kala saari karin daarunta kuu sheegay anoo luuqadda haddana dhigaya laakiin waxa weeyaan waxaan la qabsaday already automatically wixii sax iyo wixii qaldan kala saari kara sida adigoo kale af soomaaliga aad weligaad ku hadlaysa ama kusoo barbaartay haddii maanta sentence af soomaali ama word af soomaali lagu soo hordhigo grammar ma kala saari kartid. sidoo kale dadka iminka ingiriiska iyo maraykanka jooga markay ku yimaadaan bal qof ajaanib oo native luuqadda ku ah 12 tense bal weydii 99% way ku dhacay waayo inta u baahata ama isticmaasho iska yarta lama baahno qofka markuu native noqdo ruleska grammarka meel buu iska dhigaya saas af carabiga oo kale dadka af carabiga ku hadla naxwada af carabiga ma yaqaanaan dadka carabta u dhashay dadkooda naxwada waxay ka yaqaanaan way yarta laakiin qofka luuqadda bartay ayaa naxwada xooga saaray laakiin se inuu hadhow waxa ku adkaata ku hadalka waayo ruleska uu fikraya xisaab buu galaya intaad isleedahay maanta o dhan grammar ahaan ama sharci ahaan shuruudihii buuxii dhamaystir isku habeen ayay waktiga ku dhaafay hadalkaaga wuxuu noqonaya waad aragtay dadka soo maha marka hadalku ka soo bixi waayo waa grammarkaa la horeysi grammarka haddaad xooga saarta marka hore hadalka bartaas ugu istaagi waayo maskaxdaada xooga badan aad saaraysaa intaad xisaabta aad fikirayso aad wakti qaadanayso ayuu hadalkiina waktigii ku dhaafay marka waxaa la doonayaa grammar ahaan indirectly adoo reading-ka xooga saaraya writing-ka xooga saaraya indirectly waad baranaysa ruleska kalena waad baran doonta insha allah laakiin muhiimadda waxa weeyaan luuqadda intaad uga baahan tahay xooga saar 12 tense weligaa ma isticmaalisa iminka adoo dhaha xisaab baan u baahanay xisaabta marka imse qaybood baa ka koobanta intaasoo qaybood oo kala duwan soo maha dee trigonometry haddaanad u baahan inaad tirahdo maanta dhan trigonometry baan xooga saaraya aan baranaya waqti baan siinaya dee waqti lugus bay ku noqonaysaa waayo uma baahinba naxwahoo kale baa saas oo kale haddaad leedahay speaking aan u baahanayn grammarka xoogaa saaran inta dambe markaad hadhow hair advance markaad gaadho ha ama writing markaad xooga soo gaadho waa inaad grammarkaaga xooga saarto laakiinse markaad darajo sare oo fiican aad gaadho aad waqti u hayso markaa grammarka bara insha allah. Okay, any other questions? way jiraan ha marka waa ABC-ga laga soo bilaabaa ilaa iyo advance marka inta udhexaysa oo dhan way jirtaa beginnerka intermediate-ka iyo advance-ka ardayda u baahan macluumaadna whatsapp numberka xagga sare marka xagga hoose aad nagala soo xiriiri doontaan insha allah. ardayga xagga dambe live-ka kasoo qayb qaatan waxaa rajeynaya inaad markaad dhamaysato aad dib usoo bilaabi doonto wixii caqabada ee luuqadda kugu taaganna aad nagu soo qori doontaan insha allah comments-ka aad baan dibada salaamaya jasaakum allah khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.